madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha maxkamadda sare golaha wasiirada madaxda xusbiyada qaranka taliyayaasha ciidamada ee kala gadisan hay'adaha caalamiga ah safaaradaha wixii ka jooga salaamadaha dhaqameedka kala duwan bahda saxaafadda iyo marti sharafta kale faraha badan ee noocyada kala duwan ee ka soo qayb gashay madaxda booliiska saraakiisha sare kuwa dhexe saraakiil xigeenka iyo alifleeda iyo dableyda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan u mahad celinayaa marka koobaad ilaahay jalla wa ala nimcooyin badan oo kala wada kaana buu ina siiyey islaam buu inaga dhigay iimaan buu ina siiyey abni buu ina siiyey caafimaad buu ina siiyey ma tirin kara nicmooyinka uu ina siiyey wa inta cudu nicmatallahi la tuhsuha waxa kale oo mahadnaqayaa waxa kale oo u ducaynayaa waanu ducaynayaa ducaweynu ducaynayaa taliyihii inaga geeriyooday sareeye gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan taariikhdiisii iyo wixii uu soo qabtay madaxdii iga horeysay ayaa ka sheekaysay saaxiibkay buu ahaa ilaahay ha u naxariisto nin hawlkar buu ahaa nin daacad buu ahaa nin werwer badan oo har iyo habeen shaqada uu hayo ku werwer buu ahaa nin aan daalin buu ahaa nin wuxuu noqon doonaa taariikhdu xusi doonto haddaanu booliska nahayna insha Allah waxaanu ka diyaarin doonaa taariikh weyn baanu ka diyaarin haddii alla yidhaa waxaanu ka tacsiyadaynaynaa ehelkiisii ciidamada booliiska dhammaan iyo ummadda reer Somaliland isagana waxaanu ugu ducaynaynaa ilaahay inuu naxariistii jannatul firdaws al-a'la ka waraabiyo taa kadib shaqadan culus ee la ii dhiibay ee taliyaha ciidanka booliiska iyadoo aanay madaxtii ugu horeysay ahayn oo 30 sanadood ee u dambeeyay aan sarkaal ahaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland 5 sano iyo 6 bilood iyo 6 habeen aan operationka ciidanka militariga ahaa oo aan command ahaa oo shaqada aqaanay tan booliiskana waa maamulun عدة chief of staff soo martay ama academy soo martay sidii wasiirka arrimaha guduba sheegayay waa maamul uu yaqaana dad badan baa su'aasha ay weydiiyay raadoo military ah sidii imika halka la lahaa militariga laga wada yimi sideed booliska ula qabsan karaysa waa maamul waana la qabsanayaa insha Allah waana ku guuleysan doonaa wax badan wixii farsamo ee hoosena rag aqoon-yahana oo saaxiibadaya oo boolisa oo ila shaqayn doonaba ay taagan xilka culus waxaan ballan qaadayaa sidaan maanta ciidanka hortiisa ka sheegay oo ilaahay hortii aan ballan qaadayaa madaxdan iyo dadweynahan kala kaanka halkan fadhiyo hortoodan aan ka ballan qaadayaa inaan cadaalad wax ku maamuli doono insha Allah intii aan karo inaan daacad u noqon doono dalkayga iyo dadkayga iyo diintayda si habsami leh oo hawlkarnimo aan ugu shaqayn doono ilaahayna waxaan ka baryayaa anoo tala saaranaya isaga hawsha inuu noo fududeeyo waxa lagu celceliyay gacan qabow horta mid waan idin sheegayaa sharcigaanu ku shaqayn doona waanaanu ku adkaan doona wixii sharcigu qabto gacan kulul baanu sida sharcigu ogolyaanu ku qaban doona dadka mujtamaca reer Somaliland ee maaragtay kala kaanka ah waanu ognahay boolisku inuu saaxiibkii yahay waanu cadayn doonaa oo insha Allah saaxiibtinimadii booliska
isagoo imikaba lagu shaqeeyo waanu sii kordhin doonaayo taasuna way dhinac socon doontaayo iskagama kaaya khaldamayaan saaxiibtinimada dadweynaha iyo ku adkaanta sharciga marka taana sidaas loo ogaan doonaa waxaan u malaynayaa hadal badan halkan ma yaalo ciidamadan booliiska waxaan farayaa oo ku adkaynayaa inay u diyaar garoobaan shaqo adag iyo reform iyo inaynu halkii hore ay joogeen ka sii qaadno oo insha Allah isbedel weyn ku sameeyno waxa kale oo ballan qaadaya hadii alla yiraahdo ciidamada kala gedisan ciidanka booliisku waxba ma qaban kara keligii ciidamada kala gedisan hadaan coalition jirin sida imikaba coalition loo yaama alayna islo ciidamadu u yihiin inaanu iskaashan doono haday militariga tahay iyo haday asluubta tahay iyo haday ciidamada kale kala kaanka tahay wixii bahda sharciga la isku dhaw waa gaar eeriyaga isku dhawray sidii gudoomiyaha maxkamadda sare sheegay wasiirka arrimaha gudaha sheegay kuwa wada shaqeyn isku ayaan iyaga naga dhaxaysa gaar ah guud ahaan inaanu ciidamada wada shaqeyn doono isku soo dhawaan doono taana insha Allah waan ballan qaadin dadweynahana waxaan ka codsanayaa iyadoo aan sheegay sharciga inaanu ku adkaan doono inay nala shaqeeyaan sida taliye horeba u shaqeyn jireen ama ciidamada booliska ay u shaqeeyaan iyadoo anigu aan qabo dadkeenu inay dad aad u wanaagsan yihiin oo maanta difference inoo dhaxeeyay koonfur ay tahay dadweynaha oo foojigan waxaan ku dardaarayaa ama inay sidii hore u foojignaadaan annagana waxaan ka codsanaynaa inay noola shaqeeyaan si dhow annagoo u dhawaan doona oo maartay aan gacmaha isqabsano si aynu hawsheena ballaaran nabadgelyada aynu u sugno ugu dambeyn waxaan halkay anoo ka faa'iideysanayaa u mahadnaqayaa labada taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo sareeya gaas Ismaaciil Shaqale sababtoo ah labaduba way soo barbaariyeen macallimiintaydii bay haayeen soddokii sanadood ee u dambeeyay marka laga yimaado TSNM oo wasiirka arrimaha gudaha ka sheekeeyay waxay ragii tababaray ee kulliyadaha ay diray ee tilmaamaha wanaagsan ee maaragtay maanta halkan aan ku soo gaaray isiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa imikana insha Allah waxay noqon doonaan macallimiintayda ii dhow ee wixii taliye tusaalahan ka qaato waxaan ku soo guubaabinayaa hawsha ballaaran ee naloo xil saaray diyaar baan u nahay ducadii aan noo ducaysana Allah noo aqbalo dardaarankii ballaarnaana waanu qaadanay salaamu calaykum